ninkii faqiirka ahaa iyo kiiskii lacagta ahaa. Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijkeena qisooyinka oo aan kusoo qaadanayno qiso ka hadlaysa fadliga ama faa'iidada amaanada. Qisadan waxay ku bilaabanaysaa sidan: wuxuu deganaa ama uu ku noolaa magaalada Maka. Wuxuu ahaa nin wanaagsan oo dadku jecel yihiin. Wuxuu ahaa nin faqiir ah, gurigiisana dabka ayaa ka dansanaa. Xaaskiisa ayaa u imaatay maalin maalmaha ka mid ah ayadoo ku leh, "Aziizi, guriga cunto iyo wax la xirto toona inooma yaalaan." Aad ayuu u murugooday, wuxuuna aaday dhanka suuqa si uu shaqo u soo raadiyo una soo iibiyo wax la cuno iyo wax la xirto. Laakiin ugu dambeyn wuu waayay, aad ayuuna u sii murugooday. Wuxuu aaday dhanka masaajidka si uu 2 rakac u soo tukado, Allana u soo baryo inuu soo arsaaqo. Markuu soo dhamaystay salaadii ayuu soo aaday dhanka guriga. Intuu wadada ku soo jiray ayuu helay kiish ama qandi ay ku jirto lacag. Wuxuu la aaday gurigiisa si uu u tuso xaaskiisii, balse xaaskiisii waxay ku tiri, "Maalkan ma lihin annaga, qofkii lahaa waa inaan u celinno." Ninkii faqiirka ahaa wuxuu ku laabtay meeshii uu ka soo qaaday, wuxuuna ugu tagay ninkii maalka lahaa oo naadinayo. Ninkii faqiirka ahaa wuu farxay maadaama uu arkay ninkii lahaa maalka, wuxuuna ku yiri, "Anaa arkay." Ninkii lahaa maalka wuxuu yiri, "Qaado, adaa leh wixii hadda ka bilowdee." Ninkii faqiirka ahaa wuu yaabay, wuuna rumaysan waayay arrinkan. Ninkii maalka lahaa ayaa yiri, "Maalka anaa dhigay halkan, waxaana u naadinayay inaan siiyo qofkii soo celiyo waa qof aamin ah." Halkaa ayay inoogu egtahay. La soco qisada xigta, lana wadaag asxaabtaada kale. Waadna mahadsantahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.